بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوض الكسود وذا ورئيس الله يلا سلطان محمد سلطان أحمد سلطان عبد الرحمن سلطان تدي وكم إذا صلاتين توقو ميسان كعلوس طلقة سلطان كسود وبلقبل الميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوحة ما سنتي. سلطان سؤال كويدك ويدين يا أخوي سلطان سيدو أركت حالة الجودة طلقة ومرة يضو الجشرة ووقت عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. runtii xaaladda guud ee dalku uu marayo waa meel wanaagsan baynu maraynaa duruufo way iska jiraan oo kuwa dabiici ah oo inaga sareeyo inaan waxba ka qaban karin oo Ilaahay keeno sida abaarahaas oo kale abaarahana waxaanu Ilaahay ka baryaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu naga soo jabiyo shacbiga Soomaaliland oo dhan sidii berigii horeba ay yeeleen abaarihii hore la isaga gurmaday xukuumad iyo shacab in la isaga gurmado intaas iyadana ka codsanaya Ilaahayna wax ka baryaynaa inuu naga dulqaado سلطان سؤال تحت سلطان وحى ساكن سوق بكويني شريني كواد حسب كودني سديد ورقتها وسوونك سوي كل حسب ولبا شروع ودن كوطا لا هي قوانين تدل كوطا لا إنه بيحيو يحر هسادة سي نظام كيس إنه الضبقة أو وحي استراكشر أي كدمن أما شروطها هي لقى ربي إنه بيحيو ومد ماشى تالوي مركا وحنو أركادات كل تلعبة هرب اللوجا بحنا إنه يقبطان إذا كانت ده كل صورة مهستريان ونقول بنرجعني سلطان سيدو أكتر قريشة نبضاء مدحينها Somaliland كفديين قبل هذا بريق Somaliland runtii waxay ahayd mid loo baahnaa talaabo horumar weey qaranka Soomaaliland ma kala maarmo bari iyo galbeedba waxaynu u baahanahay inaynu gacmaha isqabsano in maamulku uu fido oo shacbiga Soomaaliland oo dhan gobolada bariga intii hore tabashooyin yaryar baa jiray intii la soo afjaro oo si wanaagsan oo qurux badan oo qiimo leh loo soo afjaro aad bay runtii u qurux badan tahay waa midaan ku hambalyeynaya weeye waa midaan guul rajeynayo weeye waa mid wixii turxaan ah reer Soomaaliland dhexdooda inaynu inagu xalisano oo aynu hagaajisano inaga ay waajib nagu tahay weeye taasina saasaan arkaa سلطان وحلا شيء صلادين Somaliland وتجي dalkan ay jaarkan ahay Soomaaliya iyadoo la dooranayo xubnihii aqalka sare ee baarlamaanka sidoo aragtay iyada arinta kulay waxaan waa shakhsi tagay ma taas noqonaysa qof kasta oo reer Somaliland oo aan talo umadeed ku tagin masiirka ummadda halkan uu yaala shacbiga Somaliland dastuurka 790 afti dastuur bayn ku ansixino halkan uu ku fadhiyaa qolayaashii qaranka hadii ay tahay hadii xukuumadii tahay hadii shacbigii oo dhan tahay inagoo isku duuban taladii ummadda halkan ay taala marka qofkii tagaa waa qof shakhsi oo lafiisa uu isaga tagay waxaan u sheegayaa kuwii hore joogayba inaan waxba ku hayno iyagiiba ay taagan yihiin si ay uga soo baxaan meesha waynu maqlina maalin walba dhawaaqa ama cabashada ka soo yeedhisa kuwii hore inaga joogayba marka cidii aan qaltaagaysa waxaan ku boorinayaa inay ku cibra qaataan dadkii hore inaga joogay sida aanay milga iyo qiimo ugu lahayn meel aan dadkaagu joogin ama cid matalaysa aanay joogin ama ummadda masiirkii ummaddu halkan yaalo goon istaaga shacbiga Soomaaliland yahay midaan gar iyo gurgurta toona gelin dadkii hore oo joogina wax leeyahay waxay ku hayaan aanay jirin oo baadi una iska yihiin waxaan rajeynayaa in dadka dhan ku gubaabinaya inay ku cibra qaataan kuwa hore meeshii inaga tagay oo qof waliba carradiisa iyo ciidiisa aamino سلطان رجينتي لك بس قبتها إن حلقة كل دورشة dalka ka dhacay 2017 runtii su'aal wanaagsan weeye doorashadii 2017 waa tii arrintiisa ama qaybsiga oo runtii caqabadii nagu ahayd ama aan la dhameystirin waqtigeedii arrintiisa ama qaybsiga waa tii la kala qaaday labada doorasho ee dib loo dhigay tii baarlamaanka marka tii madaxtooyadu aad iyo aad baan ugu rajaynaynaa inay xilligeedii ku qabsanto waxaan rajaynayaa in xukuumaduna ay xil iska saarto axsaabta qarankuna kulleeyay wixii qabiyo ahaa dhameystirkooda iyo hagaajintooda iyo habeentooda waa mid laga rabo weeye wax kale oo ku rajaynaynaa inaan marnaba aanay xukuumaddu xeel soo gelinaynin halka because madaxweynuhu isagoo dastuuriyan xaq u leh inuu 5 sano oo dambe tartamo ay tanaasulay oo yiri madaxda xisbigayga ayaan waqti siinaya waana talaabo loo baahan yahay in lagu amaano shacabka Soomaaliland waxaynu inta badan dhaqan u leenahay qofku markuu eelka galay ee aynu aaskiisa ka soo raaxno baynu amaanaa laakiin waa talaabo Axmed Siiraaye oo hore u qaaday amaanteeda uu ku leeyahay wadiga arkay ragii la midka ahaa Robert Mugabe iyo Yoweri Museveni iyo 35 sanadood iyagoo dalka soo xukumayay Afrikada kale ayaa hadana maanta la dhaqaajin laayay 5 sano oo qura isagoo joogay dastuuriyan xaq u leh inuu 5 kale isa soo taago ayuu yiri waxaan u tanaasulay madaxda kale xisbigayga waa mid aan ku buurinay runtii waa talaabo amaanteeda leh waa mid credit uu leeyahay shacbiga Soomaaliland oo dhammi uu hayo marka ma qabo in xeel siyaasadeed ay ku jirto doorashada waxaan ku rajaynayaa in waqtigeedii qabsoomayso dawdeynta waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka waraysiga aan la yeelanay Sultaan Maxamed Sultaan Cabdiraxmaan Sultaan Diri oo kamid ah salaadiinta ugu miisaanka aad baan kaaga mahadnaqaynaa waa mahadsantahay Axmed Islaan